waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan si faahfaahin mug leh aan uga warbixiyo xaaladda Mukhtaar Maxamed Catoosh iyo qaabkii loo soo xiray. wariye Mukhtaar Maxamed Catoosh wuxuu ka mid yahay wariyaasha ku sugnaa muddadii aadka u fogeyd gobolka Ambay gaar ahaan magaalada Baydhabo wakiil wareedna uu ahaa VOA oo ku hadasha afka Soomaaliga. hase yeeshee muddo maalmo laga joogo ka hor Mukhtaar Maxamed Catoosh wuxuu war ka tabiyay magaalada Baydhabo isagoo u diraya VOA kuna tilmaamaya in uu ka dhacay gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya kufsi gaar ahaan inta u dhaxaysa degmada Walaweyn iyo Leega inta u dhaxayso. arintaas oo Mukhtaar Maxamed Catoosh xigasho iyo hubin midna uusan gelinin cadaymo rasmina uu haynin ayuu wuxuu idaacada ka sii daayay in la kufsaday 3 hablood oo u soo socotay magaalada Baydhabo mid ka mid ahna dhaawacii kufsiga loo geystay ay u geeriyootay kuna geeriyootay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo. kadib markii aan daawanay muuqaalkii Mukhtaar Maxamed Catoosh uu la wadaagay VOA oo ahayd in 3 hablood la kufsaday mid ka midana ay 4 jir ahayd ayadoo dhaawacna la keenay magaalada Baydhabo dabadeetna isbitaalka ay ku geeriyootay. dawladdu waxay baaris samaysay si xaaladda si degdeg ah wax looga ogaado. warbixinta wariye Catoosh uu ka tabiyay magaalada Baydhabo hay'adaha ammaanku waxay markiiba dadaal u galeen iyo dawladduba inay arintaas soo xaqiijiyaan haddii uu falkaas uu jirana laga daba tago haddii uusan jirina baaritaan dheer loo soo sameeyo. hase yeeshee dawladda Koonfur Galbeed iyo hay'adaheeda ammaanku waxay xaqiijiyeen oo ay ogaadeen in aysan jirin wax kufsi ah oo ka dhacay inta u dhaxayso degmada Walaweyn iyo deegaanka Leego laguna kufsaday hablo Soomaaliyeed mid ka mid ahna ay halka ku dhibatay. dawladdu waxay waraysiyo badan la yeelatay isbitaalada ku yaala magaalada Baydhabo iyadoo raadinaysa xogtan wariye Mukhtaar Maxamed Catoosh uu ka gudbiyay magaalada Baydhabo oo ah in inantaas ay dhimatay dadkeeda iyo famligeedaba ay aasteen. waxa soo baxday inay tahay war been abuur ah oo aan sal iyo raad lahayn oo aan xigasho lahayn. wariyuhu marka uu xogta maqlo inuu raadiyo waa shaqadiisa dabadeetna uu baaritaan ku sameeyo xigashana uu helo waraysi ama maqala ama muuqaala oo cadeynaya waxa uu sheegay si barito oo ugu soo laabanina uu diyaarsado sidoo kalena uu dhinacyo kala duwan waraysto haddii nidaam iyo dawlad ay ka jirto deegaanka markaas uu ku shaqeeyo iyo wuxuun dawladnimo inay ka jiraan. wariye Mukhtaar Maxamed Catoosh warbixinta uu VOA ka sii daayay ma lahayn xigasho ma lahayn cadaymo codah ma lahayn cadaymo muuqaala. sidaa daraaddeed markii aan xogtaas maqalay oo aan in muddo daba taagneen xafiiska xeer ilaalinta gobolka Bay ayaa ka codsaday ku soo eedeeyay Mukhtaar Maxamed Catoosh kana codsaday maxkamadda gobolka Bay waaraan soo qabasho kadib maxkamadda waa ay ka ogolaatay gobolka Bay. shalay oo ay taariikhdu ahayd 22 bishana waxa la horgeeyay maxkamadda gobolka Bay waxaana loo gudbiyay xabsiga si ku meel gaar ah inta laga dhageysanayo dacwadiisa. sidaa daraaddeed xariga Mukhtaar Maxamed Catoosh looma xirin arrin siyaasadeed looma xirin arrimo kale oo ka baxsan qodobkan hadda lagu soo eedeeyay.